السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قارق سيتي مفيعنتين أصحابتي سو دوادا وولاشي دا أفشل وإذنك سو دوادا دا أفشل جنر كذا دايم يحاول إنك فايدي ربطاه إن شاء الله. عاو حق فايدي سنة أصحابي gacmaha dadka oo macnaha hadii aad gacmaha caata ka tahay ama gacmaha duruufo aad kala duruufeysan tahay waxyaabo ku cajilinayo liisho kaaga dhigayo ku kobcinayo ayaan kaaga faa'iideynaa insha Allah. hadii aad janarkii ku cusubta subscribe noo saar, hadii hore noo joogto like noo saar, naga baqiirin waxyaabihii aan ka samaysan lahayn ayaan tusinaynaa. macnaha gacmahaaga markii qofka salaamay sidoo kale markii ay tahay oo hadii aad tahay dad gacmo qalaleel waxa macnaha ku kobcinayo oo soft kaaga dhigayo gacmaha hadii aad ku dadaasho biidhnillaahi tacaala oo ka faa'iideey doonto ayaan caawa sameynaa insha Allah. ku soo dhawaada daa official janarkeeda waxyaabihii aad ka faa'iideen insha Allah. waxyaabaha aan ka faa'iidanay ayaa ka samaystay waa idin wadaaga. halkan waxaa igu jiro biyo cad oo qandiir waa igu jiraan waxaan marka hore sameynaynaa gacmaha ayaa meeranaynaa waa dhaqaa gacmaha liintaas u jeedin iyo waxaan ku dhaqaa insha Allah shaambadan aan gacmaha ku dhaqayaa sidee noogu soo bax marka koo fasti waxyaabo kale oo marsalihina waa idin tusinayna insha Allah. soo dhawaada asxaabteeda qaaliga liinta sida ognahay jeermiska ay dishaa jeermiska ay u fiican tahay hadii cijiyaha ay ka dheeryihiin iska jar ana hadii ay jaryihiin waa aragtaa maasha Allah. shaambadaas iyo liinta saas ugu xoqeynaa waa cashirkeena koowaad. soo dhawaada asxaabteeda qaaliga lugaha iyo gacmaha sufta ayay kaaga naqanayaan alaabtan ku dadaasho insha Allah waan ka faa'iidi doontaa insha Allah biidhnillaahi tacaala. soo dhawaada lugaha iyo gacmaha hadii cirbad la isticmaalayo cirbad ma fiicno wax kiimiko wax jikada aad ka helaysid oo ku kobcinayo gacmaha lugaha quruxna kaaga dhigayo liisho soft hadoo aragtay gacmahayga wasaqda ka soo baxday وجدني كعنتي السدال سيد هذا اسمه لهن وحيلا سلينت أكروي شامبدا أن كلقي شامبدا عادي وفي عنتهاي كفايست إن شاء الله. سيك صبح أركتنا يومين إن شاء الله. هذا مكان قعمه هذا خني gacmeena waa dhaqan nadiif ah ka dhiganay waan tirtiranaynaa insha Allah. waxaan ku sameynaa insha Allah waxyaabihi kale ayaan kaga faa'iideynaa. meeshaan waxaa ku haysanaa moos hal xabo moos ma rabno waxaan rabnaa qobka ayaa ka samaysanaa insha Allah. mooskan ma rabno isticmaaleyna moos ma rabno waxaan ka isticmaaleynaa qobka bis ayaa rabnaa insha Allah. qobki meesha kaas isticmaalna insha Allah asxaabe waan shiidaneynaa waxyaabihi aan ku darso doonana soo dhawaada qobka mooska
aad ayuu u fiican yahay. gacmaha hadaa ugu dadaashid waan shiideynaa wixii aan ku darsan doono insha allah oo idinla wadaagaa. qobka mooska fasti asiga iyo wax yar oo caanaha isku shiida insha allah. kiilinta qaleelka aan ku shiidanaynaa oo heerkii lagu shiito insha allah. hadaa afaarahan gacmaha ugu dadaashaa kula gacan daruufeysan iyo gacan daashi iyo deynaysa insha allah. qobka mooska ka fiiqanaysa ma aragtiin salaasaan ugu filan. haddana waa shiidana asxaabe. soo dhawaada walaashii daa official oo idinla kusoo dhawaada daa official dunidkeeda kasta dunida dacdada ku joogtiin ka faa'iidaysi waa insha allah. haddana waa shiidayna asxaabe. waan soo shiidna asxaabe meeshaasaan kusoo shubanay mooskii. qobkii mooskii iyo wax yar oo caano ah waaye. maxaa ku darsanaynaa waaye marka aan gacmaha marsanaynaa insha allah. halkaa waxaa inoo yaalo bariis cad aan soo shiidanay saa u aragtiin. waa bariiska aan karsano caadiga ah jikadaada ma ka weynaysid. waxaan ku darsanaynaa hal qaando. waxaa kaloo ku darsanaynaa meeshan waxaa inoogu jiro xulbad aad ayay u fiican tahay way ureysaa laakiin daawadeeda aad ayay u fiican tahay. sidaa ognahay bariiska weytin ayaa ku jiro xulbadana maasha allah ayadana si fiican gacantaada u mari. xulbad waa muhiimada koowaad. hal qaando oo buuxda aan ku darsanaynaa ma fahanteen. way urey xulbad laakiin caafimaadkeeda badan maasha allah. caafimaadkeeda aad u badan insha allah. kasoo dadaal insha allah. halka waxaa noo yaala yoogad baleen ay noo yaasho yoogad hal qaando asigana ku darsanaynaa. qaandada way yartaa. hadda maxaa isku darsanay yoogad afakaadho bariis cad qobka mooska oo shiidan maasha allah. afaaraheena waa kuwaas. haddii afaarahan iskugu dadaasho gacmahaaga mooska noqonaya maasha allah. lugaha iyo gacmaha waa marsan kartaa. mooska keliya intaa shiidatid iyo bariiska waa mari kartaa. dadka dhafar oo kaleete wejiga qod meelaha ku godgodan dhafooraha oo godgodan oo kaleeto dhafarka keenayo meelaha madow geesaha haddii aan marsato qurux ayaa kusoo baxaysaa. saliid saytuun wax yar aan ku darsanaynaa.
عفاران صبروا أصحابي قعمة ظروفيسن قعمة دالن اسمع كيسا إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه كفائدة يمكن كفائدة يسوي فائدة إن شاء الله saas ay noogu soo baxeen faaraha hadda waan marinayaa gacanta fiican mari fiican ugu buuxi soddon daqiiqo 40 daqiiqo sidaas kuugu ahaato maalin kasta ka caajisin firiijkaada geli marka intaa badsatid firiijka gasho dhac kasoo siiso gacmo daalan iyo waastiyeysiin gacmo daruuf ka muuqatay iyo gacmo hoosh ka badatay isma arkaysiin insha allah isku dadaal nafaqeeye gabdhaheena gacanta la isku hayo fiican tahay wax ma marsatid quru badnay qoyska basaalan taant hadana iska soo dhaqaana idinka ayaa tusinayay wix kala amarsanayna waa idin wadaaga insha allah ma sha Allah gacanta waa soo dhaqay liisho ma sha Allah marka asxaabteeda qaaliga sida wada ognaayba markii waxaan ku dhaqnay liin aan ku dhaqnay gacmaha iyo shaambo iyo biyo qantaxsan markii xiga waxaan marsanaa faaraheena maxaa haddana marsanaynaa faasiliinka marsanayna faasiliinka sida wada ognahay wuu cayiliyaa meel kasto qarka dama xataa marsid sidoo kale uu ku cayilinaa ma sha Allah faasiliinka lagu dadaalo hadda gacmaha liisho waaye kareenkeena marsanayna naasaha hoostooda iyo daamarstid naftigiisa ma sha Allah aad ayuu u fiican yahay gacantida daali had ismana soo arkaysiin smooth ruux liisho anaa is jeclaanayo ma fahanteen walaashayda official oo idin leh meel kasta dunida dacalada ka joogtiin kusoo dhawaada official channelkeeda هذا العشر كان انت سينوو إيه إن شاء الله بإذن الله تعالى وعاد الله كسود وايدا في الشهر كذا وحياة إن قنبيه هذا العشر كان إن شاء الله صوب رواية إذا كان بروية إذا كان صوب رواية بإذن كانوا حكسوا فائدين إن شاء الله وكفائد دونتين بإذن الله تعالى طعم هذه كدروب السهين بوجهه وكلات ما يشعرته على مريم إن شاء الله سؤال هذا أصحابتي الغالية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.